dadweyne aad u fara badan ayaa salaada ciida ku oogay masjidka weyn ee deegaanka Daarusalaam kadib markii ay qaarkood si kala yimaadeen degmooyinka gobolka Banaadir. Dadweynahan reer Muqdisho oo markii dambe isugu tagay beerta Daarusalaam ayaa isugu hambalyeeyay munaasabadda maalinta koowaad ee Ciidul Adha oo maanta si isugu mid ah looga wada ciidageeyay Soomaalida. Maamulka xaafadda Daarusalaam ayaa dhawaan qalab cusub ku soo kordhiyay goobta ay carruurta ku ciyaaraan. Sidoo kale waxaa la keenay ugaar kala duwan oo lagu talagalay inay dadka u soo daawasho tagaan. Maanta oo kale waalidiinta ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa ubadkooda u soo damaashaad geeya xaafadda Daarusalaam si ay u dareemaan farxadda ciida. Ciida Carafo ayaa ah ciida labaad ee Islaamku uu leeyahay marka laga soo tago Ciidul Fitriga, waxaana ummadda Soomaaliyeed ay soo rajeeyeen in sanadka midkiisa xiga alle ku gaarsiiyo cimri iyo caafimaad, nabad iyo caano. waa kuwan qaar ka mid ah bulshada u soo damaashaad tagay Daarusalaam oo la hadlay warbaahinta qaranka. maanta waxaan dareemayaa maalin weyn inay tahay, waa maalin farxadeed, waa maalin haddana bulshada Soomaaliya muslimiinta aad ugu weyn, haddana khaas ahaan Soomaalida waxaan leeyahay ciid wanaagsan. ummadda muslimiinta aan wada leeyahay laakiin special khaas ahaan waxaan leeyahay Soomaalida, khaas ahaan haddana waxaan sii leeyahay family-gayga. magacaygu waa Maxamed Cabdulle Jimcaale, dadka waxaan ka mid ahay Daarusalaam degan. maanta waa ciidul akbar weeye, aad si fiican baan u ciidaynaa, farxadda zaa'id way dhammaystiran tahay. waxaa isku soo toostay ciidi maalin jimca ah oo ciid hadaab ciid ahaan jirtay iyo ciid weyn oo maalinka jimcaha ku soo kordhasantay. laba ciid ayaa isku soo kulantay oo maasha Allah muslimiinta faraxoodii ah. baad waxa u soo ciideysanay Daarusalaam, waxa ka soo ciideystay xaafadda degmada Hodan. marka waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ciid wanaagsan, ciideeda kale Ilaahay ha nagu gaarsiiyo nabad iyo barwaaqo iyo waddanka nabada. insha Allah taala ciidan waxay nagu dubantaa ciidii hore. ciidan rumaantii waxay tahay jawi qabow aad u fiican. marka waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan waalidiinteeda, ehelkayga, asxaabteeda iyo dhammaan muslimiinta adduunka meel kasta ka joogaan. ciidii hore aan ku soo iidnay dalka Canada iyo dalka Mareykanka inta aad u kala duwan tahay. meeshaan waddankeena waaye Soomaaliya, waddan muslim ah oo dadkii dhan wada iidaayo, waa aad iyo aad ugu duwan tahay. deegaanka Daarusalaam waxaa maalgeliyay ganacsato Soomaaliyeed, isla markaana waxaa dhismahan quruxda badan dhisay shirkadda dhismaha ee Buruj. ciidan Carafo ayaa ka duwan Ciidul Fitriga aan soo dhaafnay marka loo eego sida ay isugu soo baxeen dadweynaha, maadaama uu hoos u dhacay cudurka safmarka ee COVID-19 oo saameyn ku yeeshay dalka. sidoo kalena ay dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday dhawaan in la qafiifinayo xayiraadaha kala duwan ee saarnaa dalka. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.